بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وعنب عبد الرزاق علي إن شاء الله بإذن الله الكريم ولا لدى دمانتين سو دوادا وحان إذن لبداقة يا جابتر 1 أو كومبليد أدميسترين أو كونسبت جودة وحاجرتو إن شاء الله سوق لقاد قاعد دونو oo topic walbo chapter 1 ku saabsan ilaa 6 ilaa 7 inuu gaar laga yaabaa title-diisa inaan mid u dul istaaga biidni ilaahi kariim intaan aan sameeynin ka hor concept guud oo qof walbo si fudud ugu fahmayo chapter 1 oo idil ayaan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago clipkan ama videogan dhamaantiin soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بإذن الله الكريم كفايديس ونفسن ولا له وحارة جبتروان إن هالمر ندب أصاب بلاوه سي كونسبت جود أكب بحيه إن شاء الله بإذن الله الكريم صوت أصاب بلاوان وحياتها هاي أرضي بدنا وحاجرتو عن جروب واتساب كذا حريرنا ستوس عن مادة وذا قادنا إن شاء الله أرضي كتكتي دب دم حتى هلا بينقف فهم مجرته مرك إن شاء الله ندب كسوالاتان سي واحد بدنا فهمان بإذن الله الكريم مهمة أقوى إنه ضدنا للصعدة إن marka helno si direct ah wada socno sidoo kale research kan inuu wax sahlan yahay inay ardayda arkaan marka insha Allah chapter 1 waxa raba hal mar inaan soo koobso summary ah oo guud oo hadana aad u sahlan kan si practical ahaan inuu fahmaan biidnillahi alkareem chapter 1 kan hadda todobadan xabba aan soo qaatay inta badan waa waxyaabaha lagu dabaqo markii la qoraayo hadii hadda loo buugal qaadana waxa way balbalaaran lahaayeen aad u badan lahaayeen laakiin marka la qoraayo si concept guud ardayda si ugu fahmaan waxa uu sameeyaa waxay tahay videogan marka insha Allah ka faa'iideyso wanaagsan chapter 1 kan wuxuu ka kooban yahay intaan hadda arkayno background of the study problem statement research objectives research question hypothesis significant scope iyo waxyaabo kale waxa jira yar laga yaabaa jaamacadooyinka qaar oo inuu guideline ku jiro laakiin inta badan majority inta la qaato marka insha Allah waxa rajeynaa inaan ku kala faa'iideysan doono soo kale operations ajiri karo asina hadhow dhaxdaan ka sharxi doona biidnillahi alkareem midkani ugu horeeyay oo background of the study-ga waxay tahay intaan ayuu ka kooban yahay ama uu ka koobnaan karaa midkani koowaad waxa horta historical hadii aan maqlan waa taariikh waan fahmeynaa background waxaan dib loo fiiriyo marka qaatid toobigaaga macnaha taariikhdii oo soo maray ayaad waxaad ka sameeyeen ayaad dib u raadinaysaa sanadkii la aasay waqtigii historical waa sidaas waxa soo idil dib ayaa waxa loo raacayaa markaas title-ka qaatay iyo variables-kaaga mid kamid ah ayaa si fiican loo soo qeexayaa taariikhdii iyo waxyaabihii oo soo maray waa theoretical kana waxa waa inaan qeexi karno labada variables-ka markaas haysatid xiriirka ay leeyihiin ee qaabka isku xirmayaan marka theoretical-ka xiriirka ay leeyihiin qaabka isku xirmayaan variables-kaaga wuxuu noqon karaa hal iyo wax laba iyo wax ka badan hal ayuu noqon karaa marka waa inaad fahmi kartaa qaabka isku xirmayaan haddana isku sharxayaan ama isku qeexayaan ayaa waxa la dhahaa theoretical conceptualna waxa waa in qofka ardayga ah ama qofka markaas daraasadeyn sameeynaayo in uu fikrad guud ka haysto oo qofka micnaha uu sharxi karo ama audience-ga ha ahaado supervisor-ka inta inuu micnaha uu sharxi karo concept guudna uu ka bixin karo uuna fahansiin karo dadka waxa la conceptual inuu ka gadi karo uu fahansiin karo title-ka markaas oo rabo inuu qaato contextual kana maxaa waaye ama contextual orientational dhikra problem jira ayuu sheegayaa hadii problem oo jirina inta uu la eg yahay ayaa contextual lagu sheegaa marka macallimiinta si ardayda micnaha ay u kala hagayaan way kala duwan tahay marka insha Allah waxa rajeynaa qof walba inuu concept-ka fahmo si ugu sahlanaato oo ugu gudbo research-ka biidnillahi alkareem problem statement-ga soo haray problem statement-gana waxa waaye waa sababta ugu weyn ee daraasadeynta loo sameeyo haddii problem jirin qof micnaha daraasadeyn ama cilmi baaris sameeyay ma jirto waa sababta ugu weyn ee loo sameeyo problem statement-ga cilmi baaris sababta loo sameeyo waaye problem statement-ga wuxuu ka duwan yahay problems-ka kala waxay tahay problems-kan waa in la sameeyo xog la soo aruuriyo data collection kadib data la soo aruuriyo la analyze gareeyo la interpret gareeyo la soo report gareeyo ay waxay kaga duwan tahay problems-ka kale sidoo kale inay ahaato waxyaabo specific ah in la qaato waxa saddex waxa ay leedahay iyada idle ama ideal waxa waaye markaas adi concept-ga ka heysat fikirka ka heysat marka problem lagu sheego maskaxda waxa aad ka sawiranaysaa waxaas aad sawiratid waxa ideal-ka actual-kan waxa currency-ga markaas la taagan yahay problem-ka sida uu yahay labadood marka la isbarbar dhigo wixii ka soo baxa ayaa waxa la gap-kan waa sababta loo qaadanayo ama loo sameeyo problem statement-gan si problemkaas xal loogu helo inta badan inkastoo academic aysan xalinin ee sheegaan le ardayda markay buuga sameysanayaan laakiin inta ayaa waxa ay problem statement-ga kaliya ardayda sameeyaan cilmi baarista qof walba ayaa cilmi baaris sameeyo marka insha Allah waxa rajeynaa in la fahmo concept guud kaliya ayaa ka bixinaya
sidoo kale midkeena saddexaad topigeena chapter 1 keena waxaa ka mid ah research objectives kana waxa uu kala baxaa labo general objective iyo specific objective general objective ka aad ayuu sahlan yahay waxa way title markaas aad qaadatay oo guud waxa la general objective specific objective kana waxa waaye in macnaha sub IV gaaga ama sub DV gaaga markii la kala jibiyo waxyaabaha ka soo baxo waana sababta ugu weyn macnaha loo sameeyo research objectives ka daraasadeyntan maxaa yeelay specific hadiisan wax laga dhigin wax ma naqanayso wax macnaha markaas la raadi karo ama la daraasadeyn karo saas darteed waxay u kala tahay general objectives ka title oo kaliya oo dhameystiran specific isna waxa waaye sub IV ga ama sub DV ga markii la kala jibiyo waxa lahaa specific object research questions kana waxa waaye saddexda xaba hadda ama afarta ama shanta aqaatid oo ku noqdo objectives kaaga ee soo koobtid ayaa waxa ka sameynaysaa waxay tahay su'aalo meel marka bixaysid waxna ma soo diraysid inta markaas aad qaadatid oo research objectives kaaga 4 5 2 3 halaas ayaa waxa ka dhigaysaa su'aalo heebaska ku soo aray heebaskan waxa waaye malaha ay ka aaminsan tahay waxa ay ka soo bixi doono objectives kaaga xiriirka ka dhaxeeyo objective ay qaadanaysa 3 objective 4 objective marka waa si maleysanaysaa waxa si sameynaysaa predict ama qiyaas oo ay ka maleysanaysid xiriirka ka dhaxeeyo wixii soo bixi doono positive ama negative hypothesis-kana waa intaas waxaan rajaynaynaa aad u fahmaysaan waqtigan waxaan rabaa inaan soo koobo haddana si fiican loo fahmo hore waa soo sharaxnay sidoo kale haddana waxa soo gaaray significant-gana waxa waaye waa meesha aad ku qoraysid muhiimadda oo leeyahay daraasada aad sameynaysid ama title-kaaga muhiimadda oo leeyahay meesha lagu qoro ayaa waxa la dhahaa significant-gana sababta loo qoraa waxay tahay in macnaha waa meesha uu ka fahmayo supervisor-kaaga uu ka dhaadhacayo in muhiimadda uu leeyahay title-kaaga idil waa meesha lagu qorayo waaye significant-ga waxaan kusoo galnay literature review practice iyo policy waxaan rajaynaynaa si fiican u fahanay sidoo kale qofka filligaaga ama qofka go'aanka gaarayo ayaa sidoo kale significant-gu uu ku laban yahay sidoo kale waxa wuxuu ku muujinayaa wax cusub ee aad rabtid inaad soo kordhiso meelaha laga arkaa ayaa ka mid tahay hadda kaba soo qaad lacala marka cibaan qaadatid cibaanka laba ay u kala baxaa marna waxay noqotaa secondary data iyo primary data marka secondary data waa data hore u jirto inaad macnaha wax extra ku soo dirtid waxyaabahaasna waa lagu muujinayaa waa lagu qorayaa significant-ga waana meesha ugu muhiimsan ee laga ogaanayo title-kaaga ama lagu qoro title-ka ayaa waxa la significant scope ayaa soo haray asina kor ayaa ku soo qoray waxa fiicneed inaan meeshan ku soo qoro laakiin dib ma lahan ciwaankan waa kaas oo kor scope kana aad iyo aad ayuu sahlan yahay hadii aan concept guud ka bixiyo ama soo kor scope waxa laga wadaa waxay tahay in macnaha markii aad daraasayn sameynaysid inaad title-kaaga ku soo qortid dhahdid title-kaaga sheegtid kadib location-ka ka sameynaysid daraasad inaad sheegtid kadib xilliga aad bilaad ilaa xilliga aad dhamaysid inaad sheegtid marka aad iyo aad ayuu sahlan yihiin waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iido doontiin aan ka faa'iideysan doontiin insha Allah باذن الله الكريم horna oo soo qaadan chapter 1 keena waxa maanta u dejinayno waxay inta ka qaadan concept guud qofka markuu qorayna isan ku noqon wax adag oo arko inuu yahay wax sahlan kaliya wax ka xiga waxay tahay inaad sameysid dadaal yar hadii aad dadaal yar sameysid concept guudna ka qaata fahamtid xitaa macalinka wax badan waa isfahmaysan insha Allah باذن الله الكريم ka faa'iideyso wanaagsan salaam calaykum